maanta waxaa inoo qabsoomay shirkii caadiga ah ee golaha wasiirada. waxaa shirka gudoominayay kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka mudane Saalax Axmed Jaamac. sida caadiga ah shirkan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga oo warbixino laga dhageystay hay'adaha amniga, iyadoo si weyn looga hadlay guulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka oo isgarabsanaya ay toddobaadkani ama maalmihii dhowaa ka gaareen dagaalada ama gulufka lagu hayo khawaarijta al-shabaab. sidaad wada ogtihiin muddo 24 saacadood ka yar ayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya shacabka isgarabsanaya waxa ay ku guuleysteen in ay gacanta ku soo dhigaan deegaanada Galcad, Eeldheer iyo Xardheere. taasina waxay ahayd guul runtii aad u weyn oo dad badan aysan filayn, balse ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kalsoonida shacabka ay arrintaasi u suura gashay. marka warbixintaasi ayaa golaha wasiirada ugu weynaa warbixintii maanta shirka golaha wasiirada lagu soo qaaday. ajendayaal kalena waa ay jireen, sida ajenda ku saabsan is-afgarad dhex maraya wadamada Masar iyo Soomaaliya dhinaca boostada iyo teknolojiyadda. heshiiskaasi oo runtii qayb weyn ka qaadan kara dib u dhiska hay'adaha kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya oo Masar ay gacan ka siinayso Soomaaliya. marka iyadoo la eegayo muhiimadda heshiiskaasi ayay golaha wasiirada si wada jir ah u ansixiyeen in heshiiskaasi uu dhaqangel yahay, isla markaana ay jiri doonaan wadahadallo dhex mari doona dalalka Masar iyo Soomaaliya dhowaan oo ku saabsan hirgelinta heshiiskaasi. ajendayaal kalena waa ay jireen oo golaha wasiirada loo qeybiyey, kuwaas oo aqrin maraya marka hore, kadibna kulamada soo socda golaha wasiirada la filayo in lagu ansixiyo amaba ay wasiiradu ka dhiiban doonaan doodahooda kadibna ansixinta loo gudbiyo haddii la yiraahdo.